14 Febraayo ee sanad walba waxaa loo dabaaldegaa maalinta jaceylka adduunka oo ku beegan maalinta berita ah. Jaceyl markaa la dhahane waxaa astaan u ah shumiska ama dhunkashada. Shumiskane waxaa lagu kala gudbiyaa ama waxaa lagu kala qaadaa xanuuno badan. Muuqaalkan waxaa kugu sharxi doonaa xanuunada ama cudurrada lagu kala qaadi karo shumiska iyo qaababka looga hortagi karaba. Balse intaasoo muuqaalka bilaabanin waxaa kaa codsanaya inaad muuqaalka like saarto, sidoo kaletana aad la wadaagtid saaxiibadaada si ay ayagana uga faa'iidaystaan. Assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Soo dhawaada dhammaan saaxiibayaal. Si aad muuqaalka hordhac iska soo aragtayba, muuqaalka waxaa rabaa inaan ku sharxo xanuunada ama cudurrada lagu kala qaadi karo shumiska. Isbuucan hadda ku jirno waa isbuuc loo asteeyay isbuuca jaceylka adduunka, laga soo bilaabo 7 Febraayo ilaa 14 Febraayo. Sanad walba waxaa la xustaa in ay yihiin maalmaha jaceylka adduunka. Waxaa ku jira maalinta ubaxa adduunka, maalinta shumiska adduunka, iyo maalinta berito oo ah maalinta jaceylka adduunka. Runtii aniga ahaan ma aaminsani, laakiin waa maalmo si guud ahaan adduunka loo asteeyay inay maalmahaas yihiin. Haddii aan muuqaalkayga soo gudbo, muuqaalkan waxaa rabaa inaan ku sharxo xanuunada lagu kala qaadi karo shumiska. Si guud ahaan, shumiska waxaa lagu kala qaadi karaa xanuuno badan, gaar ahaan kuwa ay keenaan caabuqyada jeermiska iyo sidoo kaleeto viruska. Xanuunada lagu kala qaadi karo shumiska aad ayay u badan yihiin. Waxaa ka mid ah number 1 xanuunka loo yaqaano kissing disease oo ah xanuunka shumiska ama cudurka shumiska loo yaqaano. Cudurkan waxaa caafimaad ahaan loo yaqaanaa infectious mononucleosis, waana nooc ka mid ah xanuunada faafa. Inta badan xanuunka loo yaqaano kissing disease ama xanuunka loogu magac daray inuu yahay xanuunka shumiska waxaa keeno caabuqa viruska ee loo yaqaano Epstein-Barr virus ee loo soo gaabiyo ABV. Runtii xanuunkan wuxuu ka mid yahay xanuunada inta ugu badan lagu kala qaado shumiska, waana sababta ugu weyn ee loo bixiyey ama loogu bixiyey magaca kissing disease ama magaca shumiska, cudurka shumiska sidaas ayaa loogu bixiyey. Sidoo kaleeto xanuunada kale ee lagu kala qaadi karo shumiska waxaa ka mid ah number 2 xanuunka loo yaqaano hergebka ama duriga. Markaa Soomaalidana inta badan hergebka xanuun uma naqaano, oo qofka ka qabo hergebka qofka kale oo la mid yahay oo inta badan isku wax jiraan. Balse hergebka wuxuu ka mid yahay xanuunada ay keento viruska, waana xanuunada si degdeg ah u faafo. Sidoo kaleeto xanuunada kale ee keeni karo in shumiska lagu kala qaadi karo waxaa ka mid ah number 3 hepatitis B ama cagaarshowga noociisa labaad. Cagaarshowga sida wada ognaanay waa nooc ka mid ah virusyada aadka u fida isla markaana halista zaa'idka wata. Cagaarshowga waxaa lagu kala qaadi karaa shumiska, inkastoo inta ugu badan lagu kala qaadi karo qofkan ama laba qof inay dhacaanadooda isgaaraan, laakiin marmarka qaar waxaa lagu kala qaadi karaa shumiska, gaar ahaan qofka infected-ka ah ama qofka viruska wado. Hadduu tiro aad u badan oo virus ah uu afkiisa ku wado, waxaa laga yaabaa in si degdeg ah jirkaaga kusoo gaaro hepatitis B-ga ama cagaarshowga. Sidoo kaleeto shumiska waxaa lagu kala qaadi karaa bakteeriyo badan, gaar ahaan number 4 wax loo yaqaano bakteeriyada suuska keenta, gaar ahaan bakteeriyada loo yaqaano Streptococcus mutans iyo bakteeriyada loo yaqaano Lactobacillus. Labadan bakteeriya waa bakteeriyada ugu badan ee afka laga helo isla markaana keena suuska. Marka waxaa laga yaabaa qof haddii aad shumisid in bakteeriyada si fudud afka kusoo gasho, kadibna ilkahaada ay dul degto ama ciribkaaga, kadibna si fudud ay ilkahaaga ku keento suus. Sidoo kaleeto xanuunada kale ee lagu kala qaadi karo shumiska waxaa ka mid ah number 5 xanuunada ama cudurrada ku dhaca faruuryaha. Cudurrada ku dhaca faruuryaha aad ayay u badan yihiin. Waxaa ka mid ah aphthous ulcer-ka oo ah nabraha yaryar ee gudaha faruurta ka soo baxa, iyo sidoo kaleeto caabuqyada herpeska. Caabuqyada herpeska aad ayay u badan yihiin, waxaan ugu caansan caabuq loo yaqaano herpes labialis. Guud ahaan marka xanuunada ku dhaca faruuryaha waxay ka mid yihiin xanuunada sida zaa'idka u fido isla markaana shumiska lagu kala qaadi karo. Sidoo kaleeto xanuunada kale ee lagu kala qaadi karo shumiska waxaa ka mid ah number 6 xanuunka loo yaqaano meningitis ama Soomaali ahaan loo yaqaano qoorgooyaha. Runtii xanuunkan waa xanuun halis ah oo kugu keeni karo ilaa heer dhimasho. Xanuunkan wuxuu ku fidi karaa shumiska, neefsashada iyo wixii la mid ah. Wuxuuna ka mid yahay xanuunada lagu kala qaadi karo shumiska, neefsashada iyo wixii la mid ah.
waana run ahaantii xanuun halis ah. Guud ahaan xanuunada loo yaqaano kissing diseaseska ama xanuunada ku fidi karo shumiska lixdaas ayaan kusoo koobaya, balse lixdaa waa lixda ugu caansan, kuwo kale oo ka badan way jiraan. Adiga daawanaya muuqaalkan qaybta hoose igula wadaag haddii uu jiro badan lagu kala qaado karo shumiska oo aan ka tagay. Waxaan u gudbi doonaa qaybta xigta oo ah talooyin guud oo aan sii lahayd saaxiibada daawanaya muuqaalkan ee ku aadan shumiska. Waxaan u gudbi doonaa qaybta xigta oo ah talooyin guud. Talooyinka ku soo gudbin lahaa waxaa ka mid ah number 1 ka fogow inaad shumisid qof xanuunsan. number 2 ku dadaal guud ahaan nadaafadda afkaaga ama ku dadaal guud ahaan caafimaadka afkaaga adigoo maalintii 2 jeer cadeysanayo oo ku cadeysanaya dawada cadayga gaar ahaan nooca leh maadada fluoride-ka, adigoo isticmaalaya dawada luqashada, adigoo dunta ilkaha dhexdooda lagu nadiifiyo isticmaalaya, iyo guud ahaan waxyaabaha kale ee lagu hagaajiyo nadaafadda ilkaha. Sidoo kaleeto waxaa kugula talin lahay number 3 inaad ka fogaatid inaad shumisid qof furuuyihiisa xanuunsan yihiin ama dhaawacyo iyo waxyaabahaas ka muuqdaan. Sidoo kale ugu dambeyn waxaa kugula talin lahay haddii aad qabtid xanuunada faafa ama aad qabtid wax loo yaqaan hergebka inaad ka fogaatid goobaha ay saaxiibada ay ku kulmaan ama saaxiibkaagina aad ugu dhawaatid si uu xanuunkaas ugu faafin. Guud ahaan xanuunada lagu kala qaadi karo shumiska iyo talooyinkaas guud ayaan jeclaystay inaan muuqaalkan kugu soo gudbiyo. Adiga daawanaya muuqaalkan hal su'aal aan kugu soo celiyo oo ah ma ka mid tahay dadka aaminsan maalinta jaceylka adduunka oo loo asteeyay 14 Febraayo oo ku beegan maalinta birita? Jawaabtaada qaybta hoose faalada igula wadaag. Anigoo kaaga mahadcelinayo daawashada muuqaalkan, waxaan ku rajaynayaa khayr iyo caafimaad. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.